koobka 2019 walaashan Joy ayaa waxay ku wareejisay gudoomiyaha ururka Today Cabdullaahi Yuusuf waxaan leenahay gudoon wacan gudoomiye koobka labada koox ciyaaraysa oo ku yaala way maanta aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin waxaan kaloo si gaara ugu mahadcelinaynaa Ivoriska oo Dan iyo Alan oo runtii aad iyo aad loo soo qeybqaatay maanta musuqa oo garaacay Alpha Trust oo koobka keenayna waa u mahadcelinaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن هذه الأمة العلنية أورجا ألفا تراست أو سبونسري وبكي يارا أخطبني لسنة كان أقوم بالدور من تيجا سومالوي وكما تيجي أورجا أفضلك ألفا تراست لو حكروا أمة العلنية دمان سكينة كسر عيارها السعوديين الوعى والدور هذا ما كتبنا وناسا احتمالين هذا السوق يكشف عياره waxaan rabaa in aan mahadcelinayo dhammaan martidii ka soo qayb gashay kooxihii ka soo qayb galay dhammaan furtii nooga timid Yurub Ameerika kulligood waxaan leeyahay aad iyo aad mahadsantihiin ururka Today anigoo ku hadlaya magacooda waxaan
aad iyo u mahadcelinay sidaad noogu timaadeen waxaan aad iyo aad idinkuna xasuusinaynaa inaan ayaguna halkan aan kambaal aan u mariyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo inoo soo duubay message lagu ammaanayo oo nagu soo gaari waayey maadaamaan casuumay marka aad iyo aad u mahadsan yahay xasan prime ministerkeena waxaan kula asagana u mahadcelinayaa dhammaan fariintinayaa dowladda federaalka isugu yahay maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyneheena waxaan leenahay guul iyo guul wasiiraddeeda isboortiga iyaduna waxaan leenahay shaqo wanaagsan waxaan halka ka haynaa shaqadii isboortiga waan kugu mahadcelinayaa sidaad noogu soo safaray waxaan kaloo asagana halkan mahad ballaaran uga jeedinaya wasiirkii arrimaha dibadda ee axmed cawad oo aan u fadhina martiqaad oo safarka abuur ku tegay xag shaqa qaran oo ugu soo gaari waa kaa guddoonnay mister cawad fariintaa noo soo qabsay waa mahadsantihiin maynda yaray waxaan rabnaa inaad nala dhegaysataan fariintii waxaana ku gudbinayaa walaalkay Zola. ururka Today aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin dhowr maalmood ka hor saddex maalmood ka hor waxaan la hadlay ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo ku sugan galmudug waxaan idhi magaalada Toronto waddanka Canada Soomaalida ku nool magaalada Toronto waddanka Canada Soomaalida ku nool waa dad dawlad jecel ah dawlad ka soo timaada Soomaali jecel saa awgeed waxaan ka codsaday oo aan idhi fariin u soo dir reer Canada iyo reer Toronto iyo ururka Today wanaaggan Soomaalida ay qabtay marka bal fariintuu soo diray idinkoo mahadsan nala dhegaysta waa isagoo ku sugan magaalada godin labe ayuu noo soo diray ee galmudug oo shaqo u joogo marka dhegaysi waa haweenka waqtiga ee magaalada Toronto oo sanad walba usbuuca xorriyadda kusoo aadiya inay u dabaaldegaan waxay u yeedhaan usbuuca ciyaaraha ee Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay hambalyo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee tartankaas ka qaybgalaya ay joogaan magaalada Toronto ama dalka Canada waa dadaalinayaa inta soo qabanqaabisana waxaan leeyahay waa dadaal fiican sidoo kale jaaliyada Toronto iyo dhammaan jaaliyadaha Soomaaliyeed meel walba joogaan waxaan ugu hambaleynayaa dadaalka ay ka wadaan inay dalkooda garab istaagaan waxaan leeyahay shaqadaas aysan la jibaan dalkiina wuxuu haystaa fursaddii ugu wanaagsaneed qof walba oo Soomaali ah oo qalbigiisa wajibinaysa qaba Soomaaliya loo soo socday Soomaaliya mustaqbalkeeda siihayo maanta ayuu dalkaada ku baahan yahay imow ka shaqayso maal gasho caawi dhaqaale dhinac walba ay tahay waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin meel walba ay joogto Soomaalida ilaahay ha idin gareeyo dalkeena ilaahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay prime minister xasan cali khayre ugu dambeyn waxaa idiin sheegayaa carruurta Soomaalinimada ha la baro warahooy dhulkeeni iyo baddeeni Kenya u soo socota siyaasad ha gelinayaa la yidhi laakiin waan gelayaa wiilkayga 7 sano uu jiraa laandheeraha keliya uu yahay waa Soomaalinimo iyo calan kale ma yaqaano Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israacdo waa mahadsantihiin social media bashi dhiig haa taniyo baan Facebook aanu ma rabo meesha وزير